السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkeygii walaasheedii shan arin iska ilaali. kow, shanta arin waxay sababaysaa in uu qofka bini aadanka uu walwal iyo farxad la'aan ku noolaado inta uu adduunka joogo. kow, salaada oo laga tago oo la noqdo taariku salaata oo la galabgalabsiiyo, yani aan la tukanaynin salaada waa qofku waxay keenaysaa farxad la'aan iyo walwal. labo, waalidka lagu madax adeego. labada waalid haddii kuu nool yihiin ka faa'iidayso, ha ku madax adeegin. haddaad ku madax adeegto waxay keenaysaa walwal iyo walbahar inaad adduunka ku noolaato. saddex, kitaabka alle oo laga haajiro. kitaabka alle oo laga haajiro waxay keenaysaa walwal iyo farxad la'aan. waxaan u badannahay Facebook, waxaa laga yaabaa 100 mar inaan furno, Snapchat-ka 100 mar inaan furno maalintii, 20 mar, 30 mar, laakiin kitaabka alle yeesan dhicin maalin ay kuu soo baxdo oo aan kitaabka kala furin. haddii kale walwal iyo farxad la'aan ku noolaanaysaa. afar, saaxiibka xun waxay keenaysaa in walwal iyo walbahaar iyo farxad la'aan aad ku noolaato. saaxiibka xun raadso saaxiib fiican, alla ku xasuusiya oo dantaada ku xasuusiya. shan, qadarta alle oo raalli lagu noqdo. alqadaa walqadar, in raalli lagu noqdo. haddii aan raalli lagu noqon wuxuu qofku ku nool